aniga hor waxa la yiraahdaa Faadimo Cali Jaamac Nkrumah aniga waxaan ku dhashay horta magaalada la yiraahdo Samareeb halkaasaan ka imid iskoolka waxaan kaga soo baxay halkaas ilaa galaaska afraad oo elementary-ga baan ku soo gaaray markaan ka imid xamar baan imid oo aabbaay joogay halkaasna habaryartay baa igu haysay waxaan galay iskoolka Xamar Jajab anigoo dhigta ayaan haddana markuu dhammaaday waxaan galay iskoolka Marjaale anoo dhigta ayaa waxaa la soo dhajiyey in la qorayo askar imtixaankii baan galay aniga aabbahay iima ogolayn askar laakiin oday adeerka ee Allah u naxariistay oo aabbahay ay xagga habarta ilmaha reer ay ka walaalaayeen Cabdirasaaq Xaaji Xuseen ayaan inta guriga iridiisa u fariistay yaani hooyadayna ma joogto aabbahayna naakalo qaba iskoolka ha ii diidinina inaan iskoolkaygin waan dhameystay adeero waxaan rabaa inaan askar galo waxaan ku qortay baaysto markaa wuxuu igu yiri adeeray ilaa jaamacadda aad ka dhameynaysid anaa ka bixinaya joog ma ay horta hadda askar aan galo $100 buu siiyay beledkan tagay waxaan soo qaatay wixii la iska rabay oo dhan ayaan soo qortay waxaan galay imtixaankii askarta waa la qaatay sidaasaan horta anigu askariyad ku ahaa oo ku noqday askariyadii waxaan ahaa marka waxaan la qoray haddaan cimrigii sheego waan weynaanaya waa iska sheegayaa 1963 baan la qoray askarta gabdhihii la dhihi jiray Cali Naaso Weyne meel kastoo joogaan boorto waa salaamayaa inta nool inta dhimatayna Allah u naxariisto waxaa markaa naloo keenay kuruudkii markaan ka baxnay baa waxaa nala bariyay gabar Soomaaliyeed inay ninka u qalanto oo intuu qaban karo ay qabato marka macallin baa naloo keenay Masri oo laga soo bedelay magaalada la yiraahdo Ghana Accra marka hubkuuna baraa iyo daraasadda iyo waxaasuna baraa ninku marka wuxuu arkay inaan wuxuu galabta ii sheego subaxdii markuu yimaado anigu waan ka soo baxaa ninkii baa markaas wuxuu yiri kaalay korneyl buu ahay aniga waxa leega keenay Ghana hadda adiga jaamacadaha dhamaysan lahayd sida Kwame Nkrumah aad diblomooyin badan lahayd marka you are very clever buu yiri gabdhihii baa inta qosleen waxay ugu dhaheen naayaa madowgu ku yiri markaas uqdi qaaday anagu markaa waxba ma aanu kala aqoono inkastoo wax bartay haddana anagu Afrikaan marka la leeyahay jiray ma anagu Soomaali baan Afrikaan badi ninkii baa maalintii dambe intuu darsi qoray darsigii markuu qoray buu subaxdii markuu yimid buu yiri feen Nkrumah markuu yiri oo in waa ooy sidii way horta Nkrumah halkaas way iga harweyday fanka la geeyay imtixaan baan galay fanki marka imtixaanka galay waa waxa la ii bixiyay magac kale oo sida duuliye musaasa miig baa la ii baxshay laakiin aniga maxaa la yaqaan Nkrumah askarti ii taqaano magaca famous buu ii noqday qof banoonigana waxaan dhooli jiray banooniga baal alvoolaan dheeli jiray Nkrumah marka suuqay xoog u gashay raadi moodushay waa la keenay heesayga hadda fiirsaan oo raadisaan ugu horeeyay waxa ku taala Faadimo Cali Jaamac miigi baa socon waayay wanaagta Nkrumah loo yaqaanay miig loogu yaqaan sidii baa marka Nkrumah igu soo ceshay oo magaceygii miig noqday waxa la isku kaaya daray marka hoobaladii yaani awal baan horan u sheegay markii la isku kaaya daray 12 gabdhood baa taariikhda aasayaashii fanka waa bari ku jirta mid ku aasaaran ka mid ahay intii horena markii horaan sheegay marka noolaada idin leh